نحريست بهتيس جود إمجيس قالانيد جود كينا هاتو مجري وعاوز سعيد إسحاق عون نهر وحنكم هاي أرديدا كأفل حساء أما وحكا برتبة هاي دا لن يردا يتوبردا برشة لن يردا سوماليات سويتو كارهان محنة الصحافة دا وحبرشة إذا مسافر كي وحبرشة أنت أخوك ذكري كارهان برشة محنة الصحافة أو سكارة ودنين هاي وحن كفائدة أما أن كبرتي وحيابها أكثر بدن ويكمل ديهين محنة الصحافة دا برشة إذا قيبه إذا كردوان iyo dhamaan waxyaabaha ku salaysan suxufiga iyo howlaha suxufiga oo qabto waxaan rajeynayaa insha Allah inuu noqdo ama noqoto barashada mihnadan wax aad u muhiimsan ama nolosheeda waxyaabo badan ka bedesho waxaan rajeynayaa khayr caafimaad bismillaah magacaygu waa Samiira Cali Axmed waxaan kamid ahay ardayda wax ka barata hay'adda Sooyeeto aadaan ugu faraxsanahay inaan maanta ka qalin jabinayo mihnada saxaafadda runtii markaan imaanayay aan bilaabayay mihnada saxaafadda iyo maanta waxaan kala ahay laba qofood shalay meesha aan taagnaana runtii maanta ma taagnaa aadaan ugu faraxsanahay inaan kamid ahay ardayda wax ka barata hay'adda Sooyeeto Muqdisho. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magacaygu waa Maxamed Ibaar Cabdi Cibaarseed. waxaan kamid ahay ardayda ka aflixaysa ama ka qalin jibinaysa hay'adda waxbarashada iyo tababarada dhalinyarada Soomaaliyeed ee Sooyeeto Foundation gaar ahaan qaybta mihnada saxaafadda runtii inta aan ku guda jiray safarkayga waxbarasho ee saxaafadda waxaan ka bartay waxyaabo kala duwan sidii howlaha saxaafadda bilowga saxaafadda iyo wax xirfado kale oo kala duwan runtii waxaa jooga hay'adda oo aad ugu mahadcelinaya macallimiin professional ku ah waxyaabaha ay dhigayaan waxaana runtii ka faa'iiday marka imaanayay fagaar kama hadin karin laakiin hadda maanta qof waxa ay fikirkiisa iyo ra'yigiisa dadku u gudbin karayo waxaan taa ugu mahadcelinayaa sidkayga naati waxaan leeyahay سفر غير قوانين رجال دماتنا أرضا حصل صبرني سدايو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام معكم حنان فرحان عبدي من الأخبار العالم. أنا واحد من الطلاب الذين تخرجوا من هيئة سوياته الحمد لله كنت من الطلاب الذين بدأوا المرحلة التي بدأت بها إلى المرحلة التي وصلت بها ليسوا متساويين والحمد لله أرى في نفسي تطورا كثيرا وشكر لله على ما قدمته لهيئة سوياته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجري عبد القادر إبراهيم أحمد وحن كمية ardayda ka bilixisay tababarka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Sooyeeto Foundation waxaan ka qalin jabinayaa ama ka qalin bedelanayaa mihnada saxaafadda waxaan idinleeyahay sidaas. bismillaah magacaygu waa Deeqa Cali Maxamed waxaan wax ka soo bartay hay'adda Sooyeeto ee mihnadeeda saxaafadda maanta aadaan ugu faraxsanahay in aan ka qalin jabiyo hay'adda Sooyeeto ee mihnadeeda saxaafadda shalayta meesha aan taagnay maanta halka aan taaganahay run ahaantii mid isku mid ah maahan aadaan ugu faraxsanahay in aan ka qalin jabiyo hay'adda Sooyeeto mihnadeeda saxaafadda. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الكرام اسمي نجاة محمد أحمد أتعلم منهج الصحافة الآن تعلمت الصحافة ما شاء الله تخرجت من هيئة سوياته الحمد لله رب العالمين الآن لست بالمكان اللي كنت أمس فيه الآن تطورت الحمد لله تعلمت حاجات كثيرة صار عندي خبرات كثيرة أقدر الآن أحكي وأتكلم وأقول أشياء كثيرة بدون خوف وبدون أشياء كثيرة الحمد لله رب العالمين وكمان أشكر الأستاذ وكمان أشكر المنهج شكرا.